بسم الله الرحمن الرحيم. وولاشين وان سلامية انت مسلمين تاوردن وان سلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان لي هاي سلام كبعدي وحان ربا مانتا ما ربيننا فيديو كنتي سمعيو ما ربين ديارنا وما نهين لكن وحشوك يقول نقضيبان ايان دين سداع oo maxay hayday arin ku saabsan madaxweynaha cusub maxamed cabdilaahi farmaajo oo waxa weeyaan runtii inagu Soomaali baynu nahay ma naqaano qofka maxay hayday bal taariikhdiisii baar ma naqaano muxuu ahaan jiray ma naqaano muxuu soo qaban jiray ma naqaano muxuu soo sameeyay ma naqaano waxa weeyaan waxaynu nahay budladuul waxaynu la haadinaa qof laba qof baa oranaya hebla raba taw oo kula taw oranayaan kulligood dhakaliya tan wax ka maqalaa waxa weeyaan horta inuu hubsano qofkani muxuu yahay muxuu soo ka shaqayn jiray muxuu soo qaban jiray maxay hayday muxuu ahaa dambi wadanka ma ka soo galay dhibaato ma soo sameeyay ma banaqaanaba laakiin adduunka inta kale qofka waxa la eegaa muxuu ahaa baa la eegaa muxuu soo ahaan jiray maanta waxaan soo ogaaday oon idin sidaa intii ogna horta way og tahay oo way arrintan way ka nixi doontaa way oran doonaa xagee bay ka soo heshay laakiin intii aan ogeyn baan rabaa inaan u sheego oon u iftiimiyo ninkii la doortay shalay ee loo sacabatumayay ee la lahaa wadanka adduunka wax ka bedelaya oo dadkii dhibaatooday iyo dadkii dhisilcaayay 25 sanadood qaraxu ka dul dhacayay ay wax ka bedelayaa la lahaa in maanta taariikh xumo lagu soo saaro ad baan uga xumahay waa maxay markaa su'aashu waa maxay ninkii farmaajo waxaa la soo ogaaday inuu inan Soomaaliyeed oo magaceeda la yaqaano oo muuqeeda la yaqaano oo aabaheed la yaqaano oo Soomaalida majority-ga inta ugu faraha badan ay yaqaanaan aabaheed Allah yaa raxmar raximin wuu dhintay maantana Puntland ka xildhibaan oo joogta oo xaadira oo noolo life inuu ku kufsaday Muqdisho Maxamed Siyaad Barre markii dawladdiisa joogtay inuu ku kufsaday oo faraxmeeyay inantaas ayaa la soo cadeeyay waxaa la soo cadeeyay in uu khatar ahaa markuu joogay maxay ahayd Muqdisho inuu gabdhaha yar ee Soomaaliyeed inuu faraxmeyn jiray toosna taa faraxmeeyay toos aan indhahaba saabsanba asagoo isku halaynaya dawladdii markaa jirtay markii la ogaaday inantaa inuu faraxmeeyay wax allaaliyo waxay ka qabteen may jirin wax allaaliyo wax laga qabtay may jirin haddaba waxaan leeyahay inantii haddii fiidiyoga horta waxaad ka codsanayaa fiidiyoga inaad sheer garaysaan inantii Puntland bay joogtaa waxaan ka codsanayaa inay ninkaa ku soo saarto maxkamadda adduunka inay keento oo ay ashkatayso oo maxaa la yiraahdaa aynay qarsan dhibaatadii gaadhay iyo dhibaatadii soo martay markaas inaanay qarsan waa ina Soomaalida waan ka naxayaa maxkamadda adduunka ha keento ha soo saarto arrintaas waxba yaanay aamusin waxba yaanay xishoonin maanta waxa weeyaan waqtigan aynu ku jirno 2017 waxa weeyaan qof kasta codkiisa iyo wuxuu doonayo inuu maaragtay ka hadlo iyo wixii markaas uu hayo arin iyo wixii dhibaato soo gaadhay qofku uu soo bandhigi karaa cidna ma yaabto weligeed bahabla la kufsan jiray laakiin ninkan madaxweynaha maanta noqday de waxa weeyaan inantaa uu kufsadeen waxaan ka codsanayaa inay soo saarto arrintaas oo aanay aamusin oo aanay ku jirin mara hoosteed inay qarsato maaha dhibaatadii soo gaadhay maaha inay aamusto maaha inay istiraada leedahay maxay ceeb bay kugu tahay ceeb kugu maaha adigu maad u badheerin dhibaatadan ku heshay umaad badheerin waxa weeye waa dhibaato lagu gaarsiiyey marka inaad adigii aamusto
oo aad maxay aad adduunka u soo bandhig weydo wallahi billahi waa ayaan darro weyn please waxaan kaa codsanayaa inaad arrintaa wax ka qabato oo aad soo bandhigto oo aad maxay ka hadasho inantaas magaceeda waan aqaanaa inaayaheeda waan aqaanaa Puntland bay joogtaa haddii videogaas ku soo gaadho ama aad gaarsiisaan waxaan ka codsanayaa inay soo baxdo oo ay ka soo baxdo daaha dabadiisa oo ay soo bandhigto arrintii iyo dhibaatadii gaadhay berigaas waqtigaa maxamed siyaad barre uu joogay maxay dowladda maxamed siyaad barre ay joogtay inantaa dhibaatadii gaadhay inaad soo bandhigtaa baan u baahannahay inaad waxaan wax kaala qabanaynaa Yurub baan joognaa annaga maxkamadda u gudbinaynaa annaga dhibaatadoo dhan madaxa saaranayna soo bax please soo bax ka soo bax daa hoostiisa maanta wax la qarsadayaan ma jirto gabdhihii Soomaaliyeed la kufsan jiray maxay dhibaatashada maanta loo wadbay markii la kufsanayay gabdho Soomaaliyeed wallahi billahi tallahi waan ka xumaado xitaa kamaan hadlin waxaan uga hadli waayay waxaan ogahay inaan ka deeb maartay qaracan ka qaadayo marka waxa weeyaan inanta waxaan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa Yurub baan joognaa annaga maxkamadda adduunka u gudbinaynaa soo bax oo soo hadal oo nala soo hadal السلام عليكم.